taleefanka gacanta ayaa muddo 20 sano ah naga noqday labaane ka muhiimsan wax waliba. xitaa wuxuu noqday sida diin cusub oo tiknoolaji ah. maalin waliba qofka caadiga ah wuxuu fiiriyaa taleefankiisa celcelis ahaan 150 jeer maalintii. dhammaan dunida 57 taleefan gacmeed ayaa la iibiyaa ilbiriqsigiiba, taasoo u dhiganta 1.8 bilyan in la iibiyo sanadkii. maanta taleefannada gacanta ayaa ka badan cadayda lagu cadaysto. burbur hoose oo lagu qarinayo runta. warshadaha waaweyn ee sameeya taleefannada sida Apple, Samsung iyo Huawei ayaa ka faa'iideysta kacaanka taleefannada, laakiin maxaa dhab ahaan ka dhaca dhinaca kale ee silsiladda? koox warbaahineed ayaa hal sano waqtigooda ah u huray inay soo baaraan xaaladaha shaqo ee dadka sameeya taleefannada iyo xagga alaabta ceerinta ah laga helo. waxay booqdeen warshado ku yaala Shiinaha iyo macdano ku yaala Afrika, halkaasi oo ay ku arkeen xaalado qalbi jab ah. aan ku hormarno warshadaha Shiinaha. warshada loo yaqaano LC ee ku taala Nanjing, Shiinaha ayaa lagu sheegay inay bixiso mushaar fiican oo ah 430 euro, laakiin xaqiiqdu way ka duuneed midaasi. shaqaaluhu waxay ku noolaayeen qolal ciriiri ah oo ay ku wada degan yihiin halkii qolba 8 qof. shaqaalahan waxaa ku jira caruur yar yar oo da'dooda lagu qiyaasay 16 jir, taasoo ka soo horjeeda sharciga Shiinaha iyo kan caalamiga ah. caruurtu waxay ku shaqeeyaan habeenkii 13 saacadood oo maalintii ahna way shaqeeyaan, waxayna helaan mushaar aad u yar oo ah 160 euro bishii. يعني 13 saacadood oo maalin iyo habeen ah. 13 saacadood ayay shaqeeyaan, kaliya waxay helaan 160 euro bishii. macdanta Afrika. dhinaca Afrika gaar ahaan Congo waxaa laga qodaa macdanta loo yaqaan coltan, taasoo muhiim u ah taleefannada. macdantan waxaa ka shaqeeya dad badan oo halis ugu jira in ay dhintaan sababtoo ah shilalka soo noqda. 50 qof ayaa ku dhaawacma bishii, halka ugu yaraan 5 qofna ay ku dhintaan bil waliba. caruur yar oo ay ku jiraan kuwa 12 jir ah ayaa sidoo kale ka shaqeeya macdanta halista ah. qaadka ama qaaditaanka macdanta waxaa lagu helaa 600 euro. waxaa lagu soo qaadaa 600 euro, laakiin marka la gaaro suuqa caalamiga ah qiimuhu wuxuu gaaraa 3500 euro. dib u helidda xogta. shirkadaha waaweyn ee ay ka mid yihiin Samsung, Nokia iyo Huawei waxay qaadanayaan alaabta macdanta ah oo ay ka sameeyaan qaybaha taleefannada, iyaga oo aan si toos ah ula xiriirin shaqaalaha iyo xaaladooda shaqo. shirkadahan ayaa sheegay inay leeyihiin siyaasado mas'uuliyad ku salaysan oo ay ku ilaaliyaan silsiladda sahayda ama shaqaalaha. si kastaba ha ahaatee, baaritaanka ayaa muujiyay inaysan jirin tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu ilaalinayo badbaadada iyo xuquuqda shaqaalaha. maxay tani ku taabanaysaa? taleefanka gacanta ee aad haysato waxaa laga yaabaa inuu qayb ka yahay silsiladda dhibaatooyinka ka buuxaan ee midda haddaan soo sheegnay iyo kuwa kaloo qarsanba. laga soo bilaabo caruurta ku shaqaysa warshadaha Shiinaha ilaa dadka Afrikaanka ah ee ku nafwaaya macdanta halista ah. waxaa la isweydiinayaa oo isweydiin mudan, ma kuga habboon tahay adiga in aad taageerto nidaamkan, mise waxaad dooran kartaa xalal kale oo mas'uuliyad leh? halkaasi ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeena. intaan haddii aad nala soo gaartay, like saar haddii aad horay noola joogtay. haddii aad nagu cusub tahayna subscribe leh, commentiga noo qor aragtidaada. assalaamu calaykum.